kulankan oo lagu soo bandhigayay qabyo qoraalka xeerka horumarinta xuquuqda carruurta oo ay diyaarisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxa madasha ka soo qayb galay xubno ka socday golaha wasiirada mudanayaal ka tirsan golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo saraakiil ka socda hay'adaha dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Faarax ayaa si qoto dheer uga waramay maraaxilka xeerkani uu soo maray xildhibaan محمد شيخ عبد الرحمن حلدبان حسن عوالة عينان iyo xildhibaan cabdiqaadir maxamed oo ka kala tirsan golayaasha wakiilada iyo guurtida ayaa si wada jir uga warbixiyay ahmiyadda qabyo qoraalkani uu ugu fadhiyo horumarinta xuquuqda carruurta iyagoo ballan qaaday inay dhankooda ka qayb qaadan doonaan suurtagelinta xeerkan wasiir ku-xigeenka warshadaha علي أحمد وزير كحجين كحنانة حولها علي محمد يو وزير دولها خيرات كبيها مهدي إسمان بوري أي سوى ذكرى وقول ديرادي فائدة قرنهان أي لا هاي إلا سوق حقوق ذا برشة قرنهان كو عرورتا يجو بلن قاضي إن أي كقيب قاضنا يان من المرين تحير كان وحير هذا مهمة وحلا إلى يا حقوق عرورتا مركاين لقى إلى يو أبيسك يوح كستور دباتة قلنا هي ينولشوا ده يكوبعوا ده iyo in la ilaaliyo physically and mentally labadaba in ubadka la barbaariyo waa waajib xuquuqdeeda la sugo oo xeerkoodu la maystirma aad iyo aad muhiim tahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda arrimaha bulshada oo xeerar badan oo ay leedahay golaana lagu soo mareen kuwan imika soo curiseena ay imika hadii badankeeda leeyahay ay imika diyaar yihiin waalidka weyn oo ognaho waalidku deelmihiisa xumaan lama jecla laakiin waxa laga yaabaa imka waqtigan casriga ah inaanu ilmihiisa meel uu joogo ogeyn waxa laga yaabaa inuu u arkayo inuu aqalka dhex joogo laga yaabaana ilmahaasi inuu Washington iyo Japan iyo Carabaha iyo Afrikada kale uu joogo shataa qaaradooda adduunka oo inankii joogo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cali Maxamed Axmed Cali Sandulle ayaa iftiimiyay siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan horumarinta ilaalinta xuquuqda aadamaha gaar ahaan kuwa carruurta waynu ognahay carruurteenu qaar baan anagu ku haynaa darbi jiif qaar baa agoomaha oo meel ku jira qaar baa kuweed ku xiraysan waxa soo dhan waxa la rabaa in la mideeyo waxa la rabaa in la helo sharci haga oo ilaaliya sharci iyagana ilaaliya dadkana ka ilaaliya xuquuqdooda iyo karaamadooda ilaasha bulshada nugul waxeedu waa shuruuc waxaan ballan qaadayaa anigu inta aan joogo in aan soo gabagabeeyo laba bilood gudahood wax alla wax sharci yaala geesta kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa iftiimiyay doorka wasaaradahan ay ku leeyihiin qorshaha dalka lagaga saarayo shaqaalaha ajnabiga ah oo iftiimiyay wasaaraddaasi qayb weyn ay ka tahay qorshaha dalka lagaga saarayo ajnabiga aan dalka u dhaglan halkan golaha wasiirada wax laga baasgareeyay ayaan dhaweyto sharci dadka ajaanibka qaabkay ku soo galay sida waxyiin annaga wasaaradahan waxa naga qaabilsan oo aanu mas'uul ka nahay qofka ruqsad siintiisa shaqo soo gelidooda iyo ilaalintooda iyo siintooda fiisahana waxa leh wasaaradda arrimaha gudaha oo amgreej ku matalo markay naga helaan warqadda shaqo siinta laakiin anagu nin daama tourismku iyo amargal ku yimaado shaqo ku leenahay oo aan oranayno muxuu u yimi ma jirto laakiin in la wada ilaaliyo shaqaalaha xuquuqdooda waynaan ilaalinaa shaqaalahan ajnabiga ee dalkii aad iyo aad dadkiina shaqo la yahay